السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتين صاحبيال دمانتينا ميل كستو جوجتان maanta waxaan baranaynaa marka rabto inaad WhatsApp-ka ku xirto computer-kaaga ama computer qof kale uu leeyahay desktop laptop everything maxaan sameynayaa for example telefonkayga waxa ku jirto documents oo la igu soo diray waxaan doonayaa documents inaan review ku sameeyo aan eego kadibna aan editing ku sameeyo intaas oo dhan telefonka iima qabanayo so marka waxaan u baahanahay computer-ka inaan ku xiro anigoona application-ka WhatsApp-ka aan soo dejin oo dhib badan iyo waqti badan aan gelin marka waxaan sameyn karaa Google-ka ayaan waxaan ku qorayaa WhatsApp web markaan qoro WhatsApp web waxay soo baxayso marka qaanadan oo ay ku qorantay WhatsApp web then click baan leeyahay click markaan dhaho then waxay soo baxayso qaanad kale oo code-ka ku sawiran yahay WhatsApp-ka marka code-kan markuu ku soo baxo oo si caadi ah ku soo baxo waxa aadaysa telefonkaaga ayaad aadaysa telefonkaaga marka aad WhatsApp-kaaga furto aad dhaxdiisa joogto saddexdan calaamadood oo halka ku taalo ayaad click siinaysaa saddexda calaamadood marka click aad siiso waxa ku soo baxayso marka shantan xabo ayaa ku soo baxayso new group new broadcast WhatsApp web and stored messages iyo setting then WhatsApp web-ka ayaad click siinaysaa then waxa ku soo baxayso qaanad oo arki karto code-ka halka ku yaalo haddii qaanadaas ay ku soo bixi weyso oo uu ku dhaho log out uu ku soo saaro log out ay ku dhufanaysa markaas ay ku soo baxaysaa then hadda qaanadii oo soo baxday waa tana telefonka waxaan ka raadinayaa telefonkayga WhatsApp then waxaan fiirinaa waan isku aadinayaa WhatsApp web waan ku dhuftay then waan tusayaa okay wuu arkay wuuna qaatay computer-ka iyo telefonka ama WhatsApp-ka wuu isku xirmayaa marka wuxuu ku leeyahay keep your phone connected telefonkaaga waa inuu internet ku xirnaada haddii telefonka internet ku xirnayn no ma sameyn kartid markaas waxa u baahan tahay inaad application-ka iyo WhatsApp-ka soo dejiso waqti badan u qaadanaya then blue hacker-ka aad ku dhex dejiso then aad halka geliso culays badan uu leeyahay marka qaabkaas loo isticmaalo WhatsApp-ka hadda qaabkan aad u fudud yahay oo kaliya ma sameyn kartid wax la dhahayo calling ma sameyn kartid qof ma wici kartid laakiin waxa weey inta kale uu ku qabanaya marka hawshaad marka ka dhameysto meeshan ay ku qoran tahay saddex dhibcood baad taabanaysaa then waxa leedahay log out baa leedahay iga bax baa leedahay adiguna waad ka tagaysaa meeshaasi marka hab kale ugu xirto telefonka aan dhahay WhatsApp-ka computer-ka sidaas weeye aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidaas inuu geliyo